بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا معدك اسبين oo aad uga barateen casharo lagu hormarinayo bilaadanka sidoo horumar u gaari lahaa insha Allah. maanta waxaan ka hadli doonaa hadii la yiraahdo waxaan soo wadnaa casharo oo la xiriiray dhanka risk management wax la yiraahdo ama maamulka qataraha. qatarahu waxa waaye hadda korsa cashirkan oo soo hadalnay waxay wajahaan shirkadaha iyo bilaadanka iyo dadka intaba waa wajahaan marka qataraha wax weeye in la qabsado ay tahay wax anaga aan wax ka bedeli karno ma ahan, waa wax mar walba imaan kara waaye. marka waxa loo baahan yahay in qatarahaas la qabsado marka qatarahaas haday ku qabsadaan oo kale in la qabsata ayaa muhiim ah ma ahane ina is dhiibto ama shaqada ka tagto ama halkii ahaa shirkadaadii iska xirto ma ahan, waa in la qabsato waaye. marka waxyaalaha aan marka insha Allah maanta ka hadli doono waxa kamid ah qatarahaas nidaamka oo lagu qabsado hanaanka hanaanka loo maro nidaaminta qataraha shirkadaha soo wajaha ayaan ka hadlaynaa maanta. qatarahaas marka qaabka loo nidaaminayo waxa waaye waxay u baahan tahay qof kasta inuu fahmo hanaanka nidaaminta qataraha soo wajaha shirkadaha. qataruhu shirkadna uu soo wajihi karaa, qof bilaadan uu soo wajihi karaa, hay'ad uu soo wajihi karaa, dad badan uu soo wajihi karaa. marka waxa muhiim ah in markuu ku soo wajaho qaabkii bahalkii ugu qaabil lahayd ku cadahay ayaa muhiim ah. waxayna u baahan tahay inaad mar hore ka sii fikirtay haddii aad mar hore ka sii fikirin waxa waa saa u wajahdaa waa adkaanaysaa. marka maxaa lagu qeexaa processka ama hanaanka ama talaabooyinka ugu haboon oo lagu maamulayo maxaa lagu qeexaa marka la maamulayo qataraha soo wajaha shirkadaha. waxaa la qaadaa dhowr tilaabo ayaa la qaadaa. maxaa la qaadaa dhowr tilaabo oo muhiim ah ayaa la qaadaa. dhowrkaas tilaabo oo inta badan adduunka oo dhan la isku raacsan yahay waaye. qatarahaas marka ay soo baxaan ama inta soo bixinba ka horba waxaa la sameeyaa marka shaqeynaysid oo shaqo ku dhex jirtay ayaa la yiraahdaa maxaa qatar soo wajihi kara. marka maxaa qatar soo wajihi kara marka tiraahdo waxa imaahayo koow horta tilaabada koowaad waxa kamid ah koow horta qatarahaas ina horta aqoonsato ayaa kamid ah oo horta aad dhahdo horta qatara jiri karto shaqadan aan ka shaqeeyahay ama nidaamkan aan wado ama hawshan aan wado qatara ayaa soo wajihi karta inaad tiraahdo horta koow. laba waxa waaye taxliil iyo rog macnaha rogid inaad ku sameyso rogid inaad ku sameyso qataraha qatarahaas macnaha say u kala horeeyaan qaabkay kala yihiin iyo waxaas ina horta taxliil inaad ku sameyso intaas oo qatarooda jiri karo ma wax macquul ah mise wax macquul ahayn ina kala fahmi karto ayaa laga rabaa. kabacdi waxa sameynaysaa qatarahaas aad soo ogaatay oo soo taxliilisay 5-4 qatarood oo aad ka soo qaadato oo ka soo diyaarsatay intaana soo wajihi karto aad tiri waxaa loo sameeyaa wax la yiraahdo qiimeyn ayaa loo sameeyaa. qiimeyn kee koow ah kee laba ah ranking wax la yiraahdo kee laba ah kee saddex ah kee afar ayaa loo sameeyaa. kabacdi markaas waxa waaye markaad soo qiimeysay markaad soo sheegtay oo soo taxliilisay kabacdina aad qiimeysay heerka ay kala yihiin aad qiimeysay kabacdi waxa qodobka kale waxa waaye la falgal qataraha la imo farsamo bahalka qatarahaas ku wajahayso la imo kan haduu yimaado kana ku xalnaa kan haduu yimaado kana ku xalnaa hadii tusaale ahaan duufaan dhacdo xarunteena inta hal xarun waaye xarun ceelashan ka dhigaynaa mid kale afgooyan ka dhigaynaa mid kale waxaan ka dhigaynaa braaw si qataraha hadii yimaadaan oo meeshan duufaan ay ka dhacdo tsunami ay ka dhacdo ugu fakato ceelasha ama ugu fakato afgooye ama meel kale u tagto. marka waxa waaye la falgal qataraha si qatarahaas waa imaanayaan adi inaad la falgasho ayaa laga rabaa. waxaa kaloo la sameeynaa marka qatarihii taxliiliso qiimeysay kabacdi la falgashay waxaa imaanaya wax la yiraahdo dabagalka qataraha ama dib u eegis
معناها فرسمة على إماتي فرسمة شقين اسمها تاي يمسمى أهن أيها سمينيسا marka insha Allah hadaa la yiraahdo casharadeenan waa si socod doonaan insha Allah qaybtan koowaad aqoonso qataraha qaybaan u heli doonaa taxliilinta qaybaan u heli doonaa qiimaha qataraha qaybaan u heli doonaa la falgal qataraha la imo farsamo macquul ah qaybaan u heli doonaa dabagalka qatarahana qaybaan u heli doonaa marka insha Allah hadaa la yiraahdo waxaan idin rajeynaa khayr idin rajeynaa insha Allah wixii oo faahfaahin ugu baahataan waana la soo xiriiri kartaan aad iyo aad u mahadsantihiin إن شاء الله. السلام عليكم.